dunidu asalkeedii baa la isweydiiyey xay ka soo jeeday. Where is the origin of man? Europe intii xoogga lahayd waxaana la tusay bani aadamka wuxuu ka soo jeeday Europe. Neanderthal man baa jira oo Germany laga helay, Ingiriiska laga helay, Talyaaniga laga helay, Europe baa laga soo jeeday ayaa ayaamo la isaga sheekeyn jiray. Cilmigii baa soo kordhay, waxaa la helay technology tii ka xoog badan oo runtii date-ka si fiican u samayn karayso. waxaana la tusay haddana Asia, China, Indonesia meelahaas baa laga soo jeeday. qarnigii 20aad culummada baarta taariikhda, archaeology, anthropology iyo history waxay soo heleen insaanku inuu ka soo jeeday geeska Africa. waxa la yaabay, the origin of man is the Horn of Africa. weliba waa meesha ay Soomaalida degto. marka haddii aanu nahay we are the origin of man, marka waxaan u malaynayaa runtii waxyaabo aan ku faana ayaa jira moogtahay. ummad kan cad kan madow kan guduudan kulli waxaad ka soo jeedeen Soomaaliya. nasiib daraa dhacday waxa weeye qofkii Soomaaliga ahaa yani waxyaabihii uu ku faanayay qaar baa yani qofka hadal badan waxaa la yiraahdaa waa dhaxal aabaha buu ka qaata. dowladaha aan dariska nahay gaar ahaan Ethiopia ayaa sheegatay islaam maxay radaa bani aadamka wuxuu ka soo jeeday koonfurta Ethiopia. waxa waa dalkeena koonfurta Ethiopia ka soo jeeday. tibaa la iibiyay oo meel kasta la geeyay, museumada la dhigay. inaga kamaba warqabno meesha la sheegay inaan anagu nahay. waxaan rabaa marka inaan idin tuso meelayow oo malaa qaarkiina ay maqleen oo badidiinana laga yaaba inaydan maqal. Soomaaliya ma maqasheen wax la yiraahdo the Doi civilization. DOI civilization. xadaarada Doi. Doi waxa ku yaala buuraley badan baa ku yaala. culimada taariikhda qaar waxay yiraahdeen ilaa 100 weeye. buur kastaba waxa ku aasan dad oo prehistoric intaan taariikhda la bilaabin jiray. laga yaabay inay boqorro ahaayeen, laga yaabay inay maxaan yiraahdaa rijaaludiin inay ahaayeen baa ku aasan. hal buur baan idinka tusayaa. buurta la yiraahdo buur Haybe. ma maqasheen? buur Haybe marna waxaa la yiraahdaa buur Eyle. labada arrimood Haybe iyo Eyle waxay tilmaamayaan taariikh hore. ogaatay Haybe maxay tahay? Haybe waxa weeye dhooqada laga sameeyo clayga, pottery, dhiriyaha, ashuumada, idimada, waxyaabo badan baa laga sameeyaa. waa waxyaabaha markii la raadinayo taariikh hore astaan u ah. museumkiina taga oo human history oo ku yaala Columbus waxaad eegtaan meesha potteryga. reer Columbus markay rabaan inay dadka kala u faanaan waxay tusayeen jiriyo idimo oo la jajabiyay oo dhahaan ha waagaasaan samaynay. buurhaybe ilaa hadda waa laga sameeyaa. dheriyadaas iyo ashuumadaas iyo shaambiyaashaas waa laga sameeyaa. waa astaantii taariikheed weliba taariikhdii hore ah, pre-islamic ah ayay tilmaamaysaa. Eyle waa dad adeegsada ay. tabagan aygu yani reer galbeedku waxay ugu yeeri jireen, waxay oran jireen men's best friend. soo lama yiraahdo hadda women's best friend nagu noqday markii la joogo galbeedka. marka aygu waxaa taariikhyahanku waxay sheegaan waa xayawaankii ugu horeeyay oo la domesticate gareeyay oo dad lagu soo daray reerka. tabagan lo iyo geel iyo ari iyo ka hor dadku waxay domesticate gareysteen ay. waayo bani aadamku waad la socotaan waayadii hore laba xirfadood kaliya jirtay. xirfadina waxay ahayd ii sheegade ugaarsi. exactly ugaarsi. midna waxay ahayd
wax la soo guro oo gathering, hunting and gathering. This is why the two professions bani aadamkii hore u lahaa. haweenkaa la yidhi ayagaa wax soo guri jiray, ragganu waa soo ugaarsan jiray. habeenkii bay isu imaanayaan, waxay soo gurtay iyo wuxuu asiga soo dilay baa la isu keeni jiray. eygu marka wuxuu ahaa xayawaanka keliya huntersku ay ka heleen, waayo ama waxba u soo dili ama waxaad soo dilatid buu ku ilaalin, loo dhowaan maayo haddaad keentid halkan masalan xayawaanaad soo dilatay. maanta eylada anagu waxaan idhahnaa waa dad laga roon yahay. They are not good people. eyle. In fact, we have to be proud of inaan weli dalka ku hayno elements of ancient history. eyluhu ninkan eylaha aan leenahay waa soomaaligii hore, asigaa soomaali dalad ah. annaga waxaan baniri qaarka iyagu carabaan ka nimid, haashimiin baan nahay. adigu ma tahay haddaad carab tahay soomaali fiican ma tiida mogta. soomaaliya daladaana ma tihid, waxaa kaa dhaladsan kaa soomaaliyeysan qofka aad wax ku sheegtay. ogaada carabnimadani hog bay naga tuuraysaa runtii, waayo ayagaa waxay qabaan waxyaabo la kala saaro. kani waa laandheere, kan waa laangaab. marka eylihii oo dhaladka ahaa baa la yidhi waa nin xun. I want you guys, dadka dhalinyarada ah, dadkiina oo dhan runtii inaad ku fahantaan, waayo maba jiro in the world history meel dadkaas oo kale hadda ay noolyihin. cid allaale ama soomaali allaale oo annaga aan farta ku fiiqno, anigu waxaan idin leeyahay asigaa soomaali dhalad ah. gabooyaha la sheegaayo midgaanka la sheegaayo kulli waa xirfadlayaashii. bani aadamku markuu soo dhaafay dherisamaynta wuxuu soo gaaray inuu samaysto hub samaystasho. soo ganin birtiiba bir baa la helay, iron technology. marka dadka birta wax ka sameeya, annagu waxaan baniri waa tumaal. already calaamad baad saartay. hadda waa ninkii birta ku tumi jiray oo warshadda iyo farsamada oo waxyaabaha aad wax ku qabsad ku samaynayo wey. tumaalku waa soomaaligii hore weeye oo ay carabta u timid. soo ganin cid allaale ciddaan wax ku sheegno, these are the origin of Somalis. ayagaa ah. waa inaan marka ku faannaa, aan isu sheegnaa. Buraybe, in addition to clay pottery iyo the dark tradition, waxaad ka helaysaan waxaa ku yaala sheltero waxa la yidhahdo rock shelters. rock shelterskii waxaa ugu muhiimsan mid la yidhaahdo shelterkii ama gurigii abka eedan iyo oboyhaawo. ma maqasheen weligii? yani waxaa weeye buurtii dhexdeedii baa waxaa ku yaala meel guri oo kale u samaysan, calaamadaha ay leedahay waxbaa ku sawiran. soomaalida degsadooy way siyaartaanoo waxay yidhaahdaan waa nebi aadan iyo xaawo gurigoodii waaye. walu fiirsaya abka eedan waa aadam, oboy xaawo iyo obo eedan meelay ka duganayeen waay. maxay ku tilmaamaysaa waynan kaba warqabin bibaleka, qur'aanka, isheeg tooraadka, talmuudka, tribitaakada, buug allaale buug diina wuxuu tilmaamayaa bani aadamka waxbuu ka soo jeeday. anagu waabatan idhahno bani aadam baan idhahna mogtahay. maadaama aynu hayno aqalkiisii iyo oboyhaawo ay kula nooleed, we have to tell the world. waa inaan u sheegnaan idhahnaa look, so haddaad christian tihiin soo ma aaminsatiin aadan baa ayaa ugu horreeyey. ha soo ma jirto garden of eden wax la yidhahdo. ha halkaasay ku taalla. haddaba imaada, waxaan ka helaynaa tourism iyo adduun baan ka helaynaa. anigii baan sheeganayna waataan iri kuwa naga hadal badan baa waxaasoo dhan sheeganaya.
dheriyada iyo ashuumaha iyo meesha laga sameeyo markaad fiirisaan waxbaha ku xaradhan xaradhu waxay tilmaamaysaa waxyaabo motives oo prehistoric ah ama qabiil ama waxbay sheegaysaa ama qofka magaciisa bay sheegaysaa ama saas weeyaanna waa laga ag yimid laakiin 3 bog baa ii harsanaa marka waxaan rabaa inay tuso kaliya waxyaabo aan ku faano oo marka haddaan ku noqono aynu maaragtay ka faa'iidaysan karayno marka Soomaalinimadayni waxaan fooshuxun le maanta aan nalagu arkaayo inaan nidhaahno maya annagu dadkaasaan ahaan jirnay waa dhihi karnaa